الرحمن الرحيم وررك ما أنت حيسي ليهين ورما أنت حيسي ليهين مدحويني بلاني سكيب متقن جبلان أو إذا مدوني وتا إذا مدون لودي دوي أيها وتا أيها كسر دين قرانك الديار ده عدي ترشا إيربورت حالدو هاد إيكا قش وحياب له رجع كسر يمت سود دوي dadka soo dhaweynay soo dhaweynta waxa weeye way dhaqaaqday baashaas waxa weeye waxay muuqataa mucaaradku inay ku xoogeysteen madaxweyne xasan sheekh iyo dawladdiisa mataqaana in mucaaradku ay sii xoogeysanayaan waxa weeye laakiin isweydiinta waxa weeye horta intaana gelin ninka Saciid Cabdullaahi Dani u qaabilsan social media ee dadku caaya leeyahay Kabtan Ayub ayaa wuxuu soo dhigayaa abti Cabdullaahi soo dhahay xamar xoog bayna ku nimid iyo ciidankiisa soo dagaya wadbaan muqdisho ku tagnay kuna joognaa haddeer taas waa wax qabad weyn oo ballaaran weeye haddaanay dadku raali ka hayn dadka la weydiin maayo dadka madaxda waayahay haddaba waxa isweydiin badan waa aragna maanta mucaaradkii oo dhan baa soo wada baxay madaxweynihii Jubbaland ayaa soo degay ajib uu soo degay waxa ka hortagay waliba madaxweynaha Jubbaland soo degitaankiisa waxa ka hortagay ninkii la taliye hore ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir xudin warbaxshado wiilna macalin bilaaw ee saxda yaa ka hortagay rag hortagay kamid ahay maxamed aadan koofi yaa soo dhaweynta qaabilsanay oo nin cayro habar gidir ah waxa weey mucaaradku abaabulkii ugu xooganaabay sameeyeen awood bay muujinayaan waxa kale soo degay madaxweynihii Buntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagan laga hortagay oo mucaaradi muxaafid bixildhibaanada ka wada hortageen baarlamaanku xilliga ka taaganta ciidamadii la sheegayay ee la lahaa ma imaan karaa ciidamada soo degay way yimaadeen kuwa Jubbaland ku Buntland waxooda qalabka oo fiqi soo sawira ayaga oo tiimaadeen waaya haddaba maxaa dhacay aan Soomaaliya odweyn baan ahay Soomaaliya rugcada baan ahay anigu waxay la tahay waxa dhacaya oo dhan waa cadays beesha caalamka ay sameynayso shirkan waxba kama soo baxayaan shirka waxba kama soo baxayaan sababtoo ah madaxweyne xasan sheekh qorshihiisu waa inuu xukunka sii joogo hadalkaas wuu cad yahay waxa kale waa beebeen hadii madaxweynaha xoog loo sheeganayo xoog lagu maquunayo ma og laakiin umaleeyma madaxweynuhu inuu ogolaanayo doorasho ha dhacdo dimuqraadi ha dhacdo mucaaradka ha baqbaqeeyaano baarlamaanka ha laga qaqayliyo madaxweynuhu ma ogola runta qofka dadka Soomaali ruma jecla been bay rabaan may madaxweynuhu waxa laga yaabaa madaxweyne xasan sheekh inuu xukunka sii joogo fiiri xukunka inuu sii fadhiyo 10 sano hadda dhiman kadibna waxa dhici karta wiilkiisa Cabdifataax inuu xukunka la wareego saas way dhici kartaa hadalkaas iga qora ama waxa dhici karta inuu qof tiimkiisa ah oo xukun ku wareejiyo laakiin qorshaha madaxweynuhu maxaa ula isku ah mataqaaniin qorshaha madaxweynaha waxa ula isku ah nimankan beesha caalamka la yiraahdo ayaa ula isku ah nimankaas waa nimanka dhahayo ha yimaadaano hubkooda ha soo qaataano qorshe kastoo wato kuwaasa ya ka dawareegay haddii marka madaxweynaha cadays la saaro haddii madaxweynuhu hadda waqti koris dalbado oo qorshihiisa iyo nidaamkiisa iyo soo shaqada u wato madaxweynaha wargeli weyso nimanka mucaaradka horta xamse ma ogola isaga mugtaha madaxweynuhu 1 sano 2 sano 1 sano bar xasan sheekh inuu sii joogo meesha uu yiraahdo lagama gaari karo waa suurtagal okay laakiin mucaaradkuna waxbay riixayaan waliba labadan hadda maanta yimid waa rag imaaraadka carabta wey boorsooyinka lacagta imaaraadka carabta daba yaala madaxweynuhu Sacuudi Arabiya iyo Qatar iyo meelaha soo daaday horta ogow Soomaaliya culays weyn baa saaran dadku ay dareemi karin okay hal qodob laakiin waa in saadaalinaya madaxweyne xasan sheekh xoog kasta ha u adeegsado mucaaradka qorshihiisa ha keensado wuxuu doono madaxweynuhu ha sameeyo laakiin doorashada madaxweynaha Soomaaliya teendadii aadi golaha deegaanka la soo doorto doorashooyinka laga qabto meel kasta wax walba la sameeyo laba arrinba madaxweynaha way qabsaneen hadda hadalkaas iga qora maamulkii uu tegay laascaano ee madaxweynuhu uu yiri maamulkaas waa aqoonsado uu yiri
maamulkaas waxay u badan tahay boqolkiiba 99 in uu ka laabto dowladda federaalka dhahan waa ka laabanay ma aqoonsanin qaatumo labo madaxweyne xasan sheekh xasan ku qaato laba ku qaato saddex ku qaato afar ku qaato wuxuu ku qasban yahay teendhada inuu aado oo xildhibaan soo doortaan madaxweyne uu ku qasban yahay wax rabaa sameey hadalkaasi qora laakiin isaga horta waa dagaalamaya hadda qorshayaasha socdo waxaa waaye qorshayaasha socdo waxaa ka mid ah macallimiinta reer waqooyiga ahaa faarax cabdiqaadir wasiirka waxbarashada macallimiinta reer waqooyiga ahaa yaa waxa uu wadaa qorshe uu ku lisgaraynayo oo rabo in xildhibaanada isaaqa iyo samaroonka iyo ciisaha lagu qabto muqdisho kadibna xildhibaanadaas laga dhigo macallimiinta oo isaga ka shaqeeya jaamacadaha muqdisho tiimkiisa ah inuu xildhibaanna ka soo dhigo saas qorshaha saas u socdaa ugu marka meeshaan waa la isgaadaa meeshaan waa la isgaadaa ilfaha la isu qaadaa okay nimankaan noma qorsho lacagna waa hayaan hadda inay laga laaban doono fiiriya in waqooyi bari maanta in laga laabto saciid cabdilaahi denne ma yeelaya haddii lasu yimaado oo le maamul goboleed ha shiraano ayagoo fadhiyaan dhulbahante iyo maamulkoodi ma yeelaya saciid cabdilaahi denne ma yeelaya dee ma soo fadhiisanayo allay ka ta saciid laftiisa baalaha laga rifay dhibaato badan loo geystay isaga laftiisa baalaha laga rifay waaya haddaba imaashaha maanta uu imaanaya madaxweynihii jubbaland oo hubkiisa wato waxay wajo gabax ku tahay oo aad uga tiiraanyoonayo ra-iisul wasaare xamse iyo abtigay wasiirka shaandhig axmed maxali faqi maalin qurux badan uma aha siday wax u socdaan maalin qurux badan ay ku farxayaan waxa socda ma aha dushooda lagu kaabey maanta dushooda lagu kaabey marka waxaa weeye siyaasaddu malaha saaxiib joogtaa siyaasaddu malaha saaxiib joogtaa culays saa'idaha jiro oo dhinaca beesha caalamka waxaa weeye nimanka israa'iiliyiinta shaqay wadaan laftoodii ma shaqa la ugu israa'iil shaqo badan bay wadaan howl culus baa socota toddobaadkan shir weyn buu leeyahay netanyahu donald trump wuxuuna kala hadlayaa arrinta iiraan arrinta qasa iyo arrinta somaliland saddex qodob oo waaweyn weyn laakiin annaga ayaamo un baan somaliland israa'iil ay aqoonsatay 4 maalmood buu ka hadlay madaxweynaha dowladdu waa ka qaqaylisay waxaa muuqata in cadaadiska xooggan ee saaran madaxweynuhu uu ku iloobay wixii ka socda somaliland cadaadis xooggan baa saaran dhinac walba leh firi maxaa israa'iil lala dagaalaa israa'iil waxaa la dagaali karaa miska celi kara iyo qorshaheeda dad midaysan madaxweynuhu maa sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maxamed xuseen rooble iyo lix faatama uu iska celiyaa iyo xasan cali khayri iyo iska dhaa ma saciid cabdilaahi daniye axmed madoobow aadaa ma somaliland jaarja la gala ma al-shabaab ula dagaalaa madaxweynuhu imise qorshaas dul saala bal fiiriya marka warbixinta xigta ayaan uga soo hadlaya ra-iisul wasaare xamse oo maanta marmar u booqdaa airboortka tuuganimadii ka socoto arka hal xir dhihi maayo lacagteeda ha loo celiyo dhihi maayo dadka kaarkan wata ee ummadda baadda ka qaadayo ee caafimaadka beenta ku qiyaamayo hala soo xir dhihi maayo ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay mataqaanaa keliya dadka arrintan wada uu leeyahay lacagta ha loo celiyo waa tuuganimo lagu daro tuuganimo kale waa tuug oo ra-iisul wasaare dalka saamaxayo qofka $30 oo caafimaad qofka la marina iska qaadanaya oo tuugga ah ra-iisul wasaare raalli ka yahay waa daahir cali soo dhahaya ku xirraa barnaamijka qubanaha daahir cali soo